Assalaamu calaykum. Muuqaalkeena waxa uu ku saabsan yahay faa'iidada ay leedahay naasnuujinta. Waxaana ku soo koobi doonaa 3 qodob oo waaweyn haddii aad doonaysid ka bogasho wacan. Qodobka koowaad, faa'iidada ay u leedahay ilmaha naasnuujinta. 1. Nafaqo wanaagsan. Caanaha naasku waxay bixiyaan isku dheelitirnaan quman oo nafaqo leh oo ay ku jiraan borotiino, dufan, fitamiino iyo macdan si fudud loo dheefshiidi karo looguna talagalay baahida ilmaha. 2. Taageeridda nidaamka difaaca. Naasnuujintu waxa ay ka kooban yihiin unugyo difaaca jirka ah iyo arrimo kale oo difaaca kuwaas oo ka caawiya in ilmaha ay ka ilaaliyaan caabuqyada iyo cudurrada kuwaas oo si gaar ah muhiim u ah bilaha hore. 3. Khatarta xanuunada oo ka yaraada. Ilmaha naaska la nuujiyo waxaa ka yaraada halista ah in ay ku dhacaan xaaladaha sida caabuqa dhegta, caabuqa neefmareenka, caabuqa caloosha iyo mindhicirka, iyo xasaasiyadda. 4. Horumarinta ugu fiican iyo korriinka. Nafaqooyinka ku jira caanaha naaska waxay taageeraan korriinka caafimaadka leh iyo horumarka oo ay ku jiraan korriinka maskaxda. 5. Isku xirka. Naasnuujintu waxay kor u qaadaa xiriirka dhow ee ka dhexeeya hooyada iyo dhallaanka iyada oo loo marayo isku dhawaanshaha jireed iyo taabashada maqaarkeeda iyo maqaarka cunuga. 6. Dheefshiidka wanaagsan. Caanaha naaska si fudud ayaa loo dheefshiidaa marka loo eego caanayaasha kale taasoo yareynaysa suurtagalnimada calool istaagga iyo xanuunada dheefshiidka. 7. Khatarta xaaladaha daba dheeraada oo yaraada. Naasnuujintu waxay yareysaa halista ah in ay ku dhacaan xaalado daba dheeraaday nolosha dambe sida cayilka, nooca 2 ee sankarowga ama macaanka oo loo yaqaano type 2 diabetes iyo cudurrada wadnaha iyo xididada dhiigga. Qaybta 2. Faa'iidada ay u leedahay naasnuujinta hooyada. 1. Kasoo kabashada dhalmada kadib. Naasnuujintu waxay ka caawisaa ilmo-galeenka in uu isku ururiyo oo uu si degdeg ah ugu soo laabto cabbirkiisii uurka ka hor, taas oo yareyn karta dhiigbaxa dhalmada kadib. 2. Gubashada kalooriga. Waxay ka caawisaa gubidda kalooriga dheeraadka ah, taas oo ka caawin karta ku soo noqoshada miisaankeedii uurka ka hor. 3. Waxay hoos u dhigtaa khatarta kansarada qaarkood sida halista kansarka naasaha iyo ugxan-sidaha. 4. Ka hortagga uurka dabiiciga ah. Exclusive breastfeeding oo ah naasnuujinta gaarka ah waxay dib u dhigi kartaa soo noqoshada caadada waxayna siinaysaa hab dabiici ah ee ka hortagga uurka. 5. Isku xirka dareenka. Nidaamkani wuxuu kor u qaadaa xiriirka hooyada iyo ilmaha taas oo noqon karta mid niyad ahaan u buuxisa. 6. Qarashka oo u keedsama. Naasnuujintu waxay meesha ka saaraysaa baahida loo qabo gadashada caanaha iyo dhalooyinka taas oo noqon karta kayd qiimo badan. Qodobka 3. Faa'iidada ay u leedahay naasnuujinta qoyska iyo bulshada. 1. Fududeynta. Caanaha naaska ayaa had iyo jeer lagu heli karaa heerkulka saxda ah umana baahno diyaarin ama jeermis in laga dilo taas oo ka dhigayso quudin fudud. 2. Saamaynta deegaanka. Waxay yareysaa saamaynta deegaanka ee la xiriirta wax soo saarka, baakadaynta iyo tuurista caanaha iyo dhalooyinka. 3. Waxaa meesha ka bixi doona ama yaraan doono booqashada dhakhaatiirta iyo isbitaalka sidoo kale waxaa keed ku noqon doono qarashkii kaaga bixi lahaa caafimaadka. Halkaas ayuu ku eegaya muuqaalkeena waxaa inoo balana muuqaalada xiga hadduu alla idmo. Kheyr badan.